Asalaamu calaykum. Qisada maanta gabadha ay ku socoto waxaa la yidhaahdaa Daariin. Daariin waxa ay tiri markii ay qisadani dhacaysay waxaan ahaa dhowr iyo 10 jir. Haddaba waxaynu gelaynaa qisadii Daariin iyo Daariin sida ay qisadeeda uga sheekaysay. Waxay tiri waxaan ahaa gabadh yar oo ay hooyadeed iyo aabaheed dhaleen kaligeed. Waxa aan ku noolaa nolol raaxo leh. Waxaana la noolaa hooyaday iyo aabahay. Aabahay waxa uu ahaa oday Ilaahay lacag siiyey. Laakiin wax walaalo ah anigu lama dhalan. Waxay tiri iskuulka waxa ii kaxayn jiray aabahay igana soo celin jiray. Waa igeeyaa wuu tagaa hadhowna isagoo ilinka ii taagan ayaan arkaa. Waan soo raacaa. Waxay tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan sidii caadadu ahayd aabahay waxa uu igeeyay iskuulkii. Markii laga soo baxay iskuulkiina waxaan waayay aabahay. Tani ma ahayn caado aan uga bartay aabahay. Cabbaar markii aan sugay waxa ii timi xaaskii uu qabay adeerkay. Xaaska adeerkay qabay lama hadlayn. Waxayna igu tiri soo fuul gaadhigan. Gaadhigii markii aan fuulay waxa aan arkay xaaskii adeerkay inay bedelan tahay. Waxaan idhi aabe maxaa dhacay? Gurigii baan ku noqday. Gurigaygii dad ayaa buuxay. Waxaana lay sheegay in aabahay iyo hooyaday ay shil galeen, shilkiina ku geeriyoodeen. Waxay noqotay habeen madow. Aad ayaan u murugooday. Waxaana ila wareegay adeerkay. Adeerkay iyo xaaskiisu waxay ahaayeen kuwo aad ii jecel oo aan marnaba i dareensiin maqnaanshaha hooyaday iyo aabahay. Inkastaanay booskaa buuxin karayn misana waxay iga hakradeen ma jirto. Waxay tiri adeerkay wuxuu lahaa 2 wiil oo aniga iga waaweyn. Wiil waxa uu ku maqnaa dabadaha jaamacada u jiray. Wiil kalena nolosha ayuu ka dhacay. Waxaa la kala odhan jiray Maxamuud iyo Saacid. Maxamuud waa wiilka nolosha ka dhacay. Waxay tiri dhowr sano markii aan la joogay waxa la soo gaadhay inaan qaangaadho oo 19 jir aan noqday. Waana waqtigii aan xijaaban lahaa. Waxay tiri markii aan xijaabtay adeerkay gurigii waa sii ballaariyay. Waxa uu sameeyay meel dhexe aan iskugu nimaadno. Mid walbana qolkiisa waxa uu sameeyay suuligiisii, fadhi gooni ah iyo qolkii ay seexan lahayd si aanay isugu iman ama aanuba wiilka isku arag. Meel dhexe ayaan iskugu iman jiray family ahaan. Filinkana ku daawan jirnay. Gabadha adeerkay qabaa aad ayay ii jeclayd. Mar walbana waxay igu odhan jirtay xitaa haddii aan gabadh lahaan lahaa sidaan kuu jeclaaday inantaydii kuma jeclaadeen. Waxay tiri waxaan la saaxiibay gabadh la yidhaahdo Faatima. Adeerkayna waa igu ogyahay. Waxay tiri habeenada ka mid ah ayaana fadhiga aniga iyo adeerkay iyo xaaskiisu fadhiisanay. Waxaanuna daawanaynay filin. Filinkii markii bartamihii marayay ayaa xaaskii adeerkay iyo adeerkayba kaceen oo luloodeen maadaama ay dad waaweyn ahaayeen. Waxay tiri keligii anigoo filinkii sii dhammaysanaya ayaa waxa dhacday in aan maqlo sanqadh. Waa baqay. Waxaan dareemay in guriga la soo galay. Waxay tiri waxa aan orod ku galay qolkaygii markii aan isiri qolkii saa u soo xidhnaa. Waxaan arkay gacan xoog ii soo riixaysa aniga iyo albaabkii. Dib ayaanan u dhacay. Markii qolkii la soo furayna waaba Maxamuud. Waa wiilka adeerkay. Wiilkan bay tiri waan nacayb xooga ii qabay aanan garanayn laakiin sababta. Waxay tiri waxa uu isku dayay inuu i kufsado. Waan orday. Waan qayliyay. Waxaan ku idhi Maxamuud oo sii daa sharaftaadii baan haye. Shaqaaladii guriga ka shaqaynaysay oo aan u yeedhi jiray mar walba i maqli jirtay markaan daaqada uga yeedho waa i maqli weyday. Adeerkay iyo eedaday mar hore seexdeen ima maqlayaan. Waxay tiri halkii ayuu iga faraxumeeyay. Qayladii iyo intii iga baxday. Cabbaar ka bacdi waxay soo orday shaqaaladii. Wayna qaylisay. Waxayna kaysay adeerkay iyo xaaskiisii. Adeerkay aad ayuu u murugooday. Maxamuudna gurigii waa ka eryay. Laakiin anigii waxa igu dhacay isbedel cadho in aanan reerkan arkiba karin. Waxa dhacday inuu ka yimaado wiilkii kale ee adeerkay dhalay dabadii jaamacadii soo dhameeyo.
waxay tiri mar walba isku dayo inuu ila hadlo waan kasii carari jiray anigoo nacayb qaaday. Waxa dhacday bay tiri in maalinkii dambe la isugu ka yeedho lana yidhaahdo weliba adeerkay igu yidhaahdo iyo wiilkiisu waxaan doonaynaa inaanu ceebtaada asturno adeer waa inaad Maxamuud guursataa. Waxay tiri markii hore waan diiday laakiin adeerkay ayaa igu qanciyey Maxamuudna waxa lagu yidhi gabadhan ayaad guursanaysaa. Waxay tiri waxa lay dhigay aroos kii ugu wacnaa waxaana lay soo iibshay alaabtii ugu qurux badnayd guri gooniyana adeerkay waa ii dhisay. Waxay tiri waxaas oo dhan ma arki karo Maxamuudna araggiisaba daaye xitaa haddii aan magaciisa maqlo waa jiridhacoonayaa. Waxay tiri markii nala aroosay cid waliba igu tiraahdo alla waa nasiib baad leedahay alla alaabta laguu dhigay laakiin aniga waxaa ii muuqan gurigii ayaan layskaga kaayay aniga iyo Maxamuud isagu bay tiri intuu baxo wuu iska soo sakhraamayaa ama imanba maayo amaba isaga oo dhacdhacaya ayuu qolka fadhiga isku tuurayaa. Aniguna waxay tiri aad ayaan uga baqi jiray 2 bilood ka bacdiba waxaan ka dalbaday furiin. Waxay tiri isla markiiba waa i furay. Gurigii adeerkay baan ku soo noqday. Markii aan saa ugu soo noqday ayuu adeerkaygu yidhi adeer maxaa ka helay? Waxaan ku yidhi adeer wuu soo furay. Naxdintii uu qaaday adeerkay kamaba soo noqon. Dhakhtarka la geeyay waxaana naloo sheegay adeerkayna siduu geeriyooday. Waxay tiri waa naxdin kale oo madow waxa kaloo baxay dhabarkaygii qofkii aan ku tiirsanaa. Xaaska adeerkayna waxay igu tiri haddii ku soo furay isaga ayaa oge iska daa. Waxay tiri aniga gurigii iska jooga oo dhowr sano gurigii jooga ayaa maalinkii dambe saaxiibaday Faatima ii timi mar walbana waa ii iman jirtay maalintaa waxay ii waday waxyaalihii hore aanu ka hadli jiray wax ka duwan. Waxay tiri waxay igu tiri saaxiib soo dhawow walaalkay Saalax waad garanaysaa. Waxay tiri walaalkay hadda weynaado 41 sano ayuu jiray laakiin waa nin diin leh garanayana waxaad kaga toosan tahay. Xaaskiisu waa tii beri dhawaad dhimatay waxayna uga tagtay wiil 15 jir iyo gabadh 11 jir ah. Marka waxaan doonayaa inaad walaalkay isguursataan. Waxay tiri waayahay baan ku yidhi. Waxay tiri ninkiina waa aqbalay. Waxa la weydiistay wiilkii adeerkay dhalay. Halkii iyada xafladii socoto xafladii faraanti galis ku socoto oo aan gabdho qol ku jirno oo isdiyaarinayo ayaa guriga waxa laad ku soo dhuftay Maxamuud qolkii gabdhaha ayuu soo galay isagoon cidna xishmaynayn. Waxay tiri wuxuu igu dhagay timaha oo igu yidhi haddaad noolaatid anigiiba Soomaha waad i diiday nin dambe calfan maysid. Waxay tiri hadalkii waxa ogaaday Saalax iyo wiilkii adeerkay dhalay ee kale waxaana la bilaabay Maxamuud in la dilo xitaa in jeelka la geeyo oo muddo 2 casho halkaa ku soo xidhnaado. Waxay tiri markii dambena waxaba ninkii ila wareegay si degdeg ah oo yidhi gurigan kuma noolaan karaysid ina keen. Halkii ayaan ku noolaabay tiri nolol raaxo leh inkastoo adeerkay tegay xaaskii si wanaagsaneydna aan ka tegay wiilkii kale walaalkay aan waxba igu samayna una isna halkii joogay misana waxay tiri nolol waxaan ku noolaa maasha Allah aad aan u mahadiyay nolol aan ka raystay dhibaatooyinkii soo gaadhay. Waan rajaynayaa inaad ka hesheen qisada maanta.